مد أفراد رسولك وحيري صلى الله عليه وسلم ولا تؤذي جارك درسكاga hadhibin dariskaaga ha dhibin buu dhahay sallallahu alayhi wasallam dhibnay maanta oo dardaarankii nabiga ka tagnay maanta waa dhibnay oo waa cadaadinay dariska ayaan u jecelnahay wax dhibaato la gaarsiiyo dariska anagoon dhibin maba seexan karnaba habeenkii dariska anagoonan dhibin oon dhibaato gaarsiinin magaalada maba aadi karnaba dariska anagoon dhibaato gaarsiin suuqa maba u kallihi karnaba dariska anagoon mashaakil gaarsiinin waxba ma samayn karnaba rasuulkana fiiri waxa uu leeyahay walaa tu'di jaarak dariskaaga ha dhibin oo haddaadan dariska dhibin takun mu'minan qof mu'min ah oo iimaan leh ayaad noqonaysaa sida ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaba dariska yaanan dhibin waa xadiiska mushaahidka aan ka rabno sidaa darteed dariska ha la wanaajiyo dariska ha la qiimeeyo dariska ha la qadariyo dariska ha la ixtiraamo war aan u tagno oo aan dhahna nacafiya dhibaatadaan idin gaarsiinay ilmaha yaryarkaa maanta markay dhagax ku tuuraan dariska oo naloo soo dacwoodo waxaan la safanaa ilmaheena war xaaladda saas ma aha war dariska ka celiya ilmihiina war dariska ka celiya ilmaha iyo dhibaatada ay ku hayaan war dariska ha ku dheeraynina raadiyaha xataa diinta islaamku waxay diidaysaa sarta asaga uu dhistay mid ka dheer inaad dhisato si aad hawada uga qariso waa shay xaaraama oo mamnuuca dariska meesha uu gaarsiisan yahay iyo heerka aan maanta gaarsiinay isma lahan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi isagoo abaa hurayra tilmaamaya arrinta noocaas ah wuxuu rasuulku tilmaamay deris yuusan deriskiisa u diidin inuu ku tallaasho daartiisa ama qashabada uu asagu leeyahay ama gurigiisa qashab kale inuu markaa ku dhegsado dadkii abaa hurayra meeshuu u talinayay haystay ayaa waxay sameeyeen inay arrintaa diideen abaa hurayra wuxuu yidhi maalii araakum maxaa dhaco aan idin arkaayo oo aad uga jeesanaysaan sunnadaan wallaahi ayaan ku dhaartay waa idinku qasbayaa qasab iyo sandulla ayaan idinka dhiga inaad dariska wanaajisaan oo dariska qiimaysaan ayuu dhahay radia allahu tacaala canhu haddaba dariska ha dhibin waa maadadii afaraad ee nebiga uu dadka kula dardaarmayay sala allahu calayhi wasalam walaa tu'di jaaraka dariskaaga ha dhibin haddaadan dariska dhibin mu'min ayaad noqonaysaa qofka suuqa wax ku iibinaayo qofka dhinacaaga kula jooga waa dariskaaga ee wanaaji beeca ha ku dhibin beeca ha ku qayaanin mashaakil kasta ha ku samaynin xaaladda noocaasa iska ixtiraam xagga deris ahaan iyo degaanka iyo guryaha saasoo kale qofka marka baabuurka aad saaran tahay dhinacaaga fadhiya waa deriskaaga intaad isla socotaan qofkaad shaqada iyo camalka iskula jirtaan ama xafiisyaha aad iskala shaqaynaysaan intuu dhinacaaga joogo waa deriskaaga ee wanaaji sigaarka ha ku afuufin xumaan ha ku samaynin dhibaato kale ha gaarsiinin waxyaaba uu dhibsanaya ha dhihin waxaasoo dhan shay xaaraama oo mamnuuc ah waaye oo diinta ilaahay aan ogolayn walaa tu'di jaarak deriskaaga ha dhibin ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaadan deriska dhibin qof mu'mina ayaad noqonaysaa iimaan maba lihinba maanta sababtu deriskii ayaan dhibnay oon wanaajin weynay oon qadarin weynay oon sharfi weynay sidaa darteed ayuu rasuulku wax badan ka dardaarmayaa salawaatullaahi wasalaamun calayh midda shanaad rasuulku wuxuu yidhi walaa ha badinin ee qosolka ha badinin ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waayo qosolka faraha badan qalbiga ayuu dilaa wuxuu tirtiraa qofka mu'minkaa haybadiisa waxaana loo daaraa maanta cajalooyin aan ku qosolno waxaan u qosolnaa sidii dad janno loogu bishaareeyey waxaan la yaabanahay buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam nin qoslaaya afkiisa in la eg oo buuxinaaya aan ogeyn inuu janno geli doono iyo inuu cadaab geli doono labada aan kala ogeyn war goormaad qosli kartaa ma taqaanaa wujuuhun yowmaidin musfira daaxikatun mustabshira maalintaa waa maalinta aad qosli karto haddii wejiyaalkaaga la iftiimiyo ilaahay calaamadii ahlu jannaadka uu wejigaaga saaro jannada ilaahay laguu fasaxo oo gal lagu yidhaahdo oo aad gasho wujuuhun yowmaidin musfira daaxikatun mustabshira way qoslayaan waana bishaaraysanayaan ayuu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala anagoon ogeyn inaan janno geli doonno iyo inaan cadaab geli doonno balse camaladeena ay u eg yihiin ilaa inuu ilaahay
ilaahay noo naxariista maahane acmaashii naarta lagu geli lahaa inaan subaxdii markaan soo kacna deriskaan ka bilownaa dhibka dadka jidka maraayaan ku xijinaa suuqaan tagnaa markaasaa qiyaano iyo qish iyo beec laysku qiyaano iyo riba la qaato ayaan ku jirnaa casirkaan soo noqonaa annagoo qaadkeena iyo jaadkeena wadana salaadii ayaa la adinaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax meelaha aan ku qayilnaan fadhiisanaynaa maqribka ilaa cishaha ayaan meesha joognaa intaa ka gadaal waa la jiiftaa ilaahay lama yaqaano salaad looma soo kaco qiyaamuleyl looma soo kaco rabbi lalama munaajoodo subxaanahu wa tacaala camalkaan haysanaa camalkaas maca daalika habeen iyo maalin waa qoslaynaa si dad janno loogu bishaareeyey oo kale cumar ibn khitaab radia allahu canhu heerka uu diinta ka gaaray waan ognahay wuxuu yidhi wallaahi haddii munaadi soo naadiyo oo caawa cerka laga soo qayliyo oo la yidhaahdo dadka adduunka jooga kulligood ahlu janno waaye ilaa hal qof maahan anaa isku maleeyaa buu dhahay radia allahu tacaala canhu wallaahi inaan aniga ahay maahana qof kale ma aha